كل wanaagsan daawadayaal halkan oo warbaahinta Soomaali weyn kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aanu xilligan idinayno waxa ka mid noqonaya xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo maanta afka furtay kuna dhawaaqay in dalka halis uu ku jiro amniga xildhibaanada wasiirada iyo madaxweynaha oo xildhibaanadu maanta ay kashifeen in xaalad qalqal amni ay ku jiraan cabsida ay ku hoydaan diiso gudbin doona qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo kulankii baarlamaanka ee maanta ku soo bandhigay halis weyn oo ay wajahayaan madaxda qaranka wararkeena kale waxa ka mid noqon doona Maxamed Salaad oo baarlamaanka looga yeeray inuu hortago iyo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo gacanta ku dhigay mooshin degdeg ah oo quseeyo amniga dalka haddaba waxaan diiso gudbin doona kooxda damul jadiid oo looga itaal roonaaday baarlamaanka Soomaaliya iyo qalqal weyn oo soo wajahay filla Soomaaliya wararkeena ayaan idinku soo baahin doonaa wararkeena kale waxa ka mid noqon doona ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo gudaha u galay saldhiggii ugu weynaa dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab ee gobolka Shabeellada Dhexe ee degmada Aadayabaal iyo Al-Shabaab oo gabi ahaanba Aadayabaal isaga baxay waxaan idin soo baahin doonaa dhaqdhaqaaqyo xoog leh oo laga soo warinayo degmada Aadayabaal iyo dagaal lagu hoobtay oo ka dhacay gudaha degmadaasi maxaa ka jira in ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ay arrimo la yaab leh ku arkeen meelaha laga saaray dagaalamayaasha Al-Shabaab ee degmada Aadayabaal iyo saldhiggii taariikhiga ahaa oo gacanta u galay dawladda guulaha waaweyn oo ciidamada qaranka ka soo yeeyeen dagaalada Shabeellada Dhexe ayaa warar idinkaga haya xogaas iyo kuwa kale oo xasaasi ah ayaan qaybtan idinku la wadaagi doonaa ciyaarta qiimaha iyo qadarinta naga mudano hasaatee intaanu gudagelin dhamaantiinba waxaad ku codsanaynaa inaad nagala qayb qaadataan faafinta wararkan muuqaalkan like dhadaan sidoo kale tan la wadaagtaan saaxiibadeena kale mahadsanidin faafinta ayaanu gudageli doonaa waxaan ku bilaabayaa wararkeena buuq iyo sawaxankii ugu xooganaa oo maanta ka dhacay kulankii baarlamaanka Soomaaliya iyadoo lagu sigtay in xildhibaanada qaar ay isku gacan qaadaan gudaha kulanka baarlamaanka Soomaaliya dooda ugu xoogan ee kulanka baarlamaanka maanta waxa uu noqday arinta ku aadan amniga dalka ee faraha ka baxay kadib markii kooxda qawaariita ee Al-Shabaab horaanta toddobaadkii tagay ee weerartay guriga madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya meel dhowr tilaabo u jirta iyadoo xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya maanta ay afka furteen kuna dhawaaqeen in amnigooda uu halis ku jiro iyo midka madaxweynaha isla amniga ra'iisul wasaaraha ay sheegeen inuu halis ku jiro kulanka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya xildhibaanadu maanta waxay ku guuleysteen in mooshin degdeg ah loo gudbiyo gudoonka baarlamaanka Soomaaliya xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaana maanta ku guuleystay inay gudbiyaan mooshinkan degdeg ah oo ku aadan xaalka dalka gaar ahaan amniga guud ee wadanka oo haatan maraya meeshii ugu xumeed abid ilaa iyo 22 xildhibaan ayaa saxiixay mooshinka kuwaasi oo ku doodayo in muhiim ay tahay in la galo xaalad amni oo dalka la geliyo maadaama haatan xaaladda wadanku ay marayso meel halis ah xildhibaanadan ayaa waxa ay sheegeen in xaaladda amni ee madaxweynaha tan ra'iisul wasaaraha iyo waliba tan golaha wasiiradu ay ku jiraan khatar si la mid ah midda xildhibaanada baarlamaanka ajandaha kulanka oo markii hore ahaa aqrinta koowaad intiisa sharciyeedka korontada kaasi oo ay xildhibaanadu dalbadeen in dib loo dhigo si looga hadlo amniga guud ee dalka ugu horeen xildhibaanada ayaa cod gacantaaga waxay ku ogolaadeen ajandaha kulanka lagu soo daray doodiisa ee ku aadan mooshinka degdega ah ee baarlamaanka loo gudbiyay isla markaasina ay soo gudbiyeen qaar ka mid ah xubnaha golaha baarlamaanka Soomaaliya ilaa iyo 44 xildhibaan ayaa ogolaatay mooshinkan kuwaasi oo ku codeeyay in laga doodo amniga dalka ee faraha ka sii baxayo waxaana meeshaasi laga dhadhansaday in kooxda damul jadiid oo isku daysay inay ka hortagto xildhibaanadan doonayay in amniga dalka laga doodo inay ka hortagto ay ku guuldareysatay taasi ayaa la sheegay in ay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya lagaga itaal roonaaday golaha dhaxdooda kooxda damul jadiid waxaana qalqal xoogan ay gelinaysaa haatan si jiritaanka xukuumadda dan qaran ee ra'iisul wasaare Xamza annaga meeshan inaan koronto ka hadalno uma aanan imaanin amnigeena ayaa meeshii ugu xumeed marayo madaxweynaha xaaladiisa waad ogeedeen waxa lagu soo weeraray gurigiisa haddaba waxaan ka dalbanaynaa baarlamaanka in xal loo helo amniga magaalada Muqdisho waxna laga weydiiyo saraakiisha ay qusayso oo loogu yeero baarlamaanka ayuu yiraahday xildhibaan ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo madasha ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada oo iyaguna kulanka ka hadlay ayaa dhinacooda waxay cabasho ka muujiyeen habdhaqanka ciidamada sugidda Soomaaliya iyaga oo sheegay in la baarto oo loo diiday xitaa in kulamada baarlamaanka yimaadaan
waa dembi in la baaro gaadiidka xildhibaanada ayuu ka dhex yiraaday kulanka xildhibaanada Daahir Amiin Jeesow oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. Askarta waxay ku leeyihiin aniga oo xildhibaan ah xiriir sameey yaa la xiriira ayuu isaguna xildhibaan Murjaan oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya yiraahday. Mooshinka xildhibaanadan ayaa imaanayo xilli maalmihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ay ka dhaceen weeraro iyo qaraxyo waaweyn sidoo kale tan ay ka dhaceen dilal qorsheysan oo ay mas'uuliyadooda disha u ridatay kooxda qawaariijta ee Al-Shabaab. si kastaba ha noqotee xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa ay dood weyn ka dhaliyeen arinta ku aadan in la horkeeno baarlamaanka agaasimaha hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA Mahad Maxamed Salaad oo ay baarlamaanka u yeereen in baarlamaanka Mahad Salaad ay u yeeraan ayaa sidoo kale waxay culayska ku sii kordhinaysaa agaasimaha hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA oo markii hore cadaadis xoogan kala gulmayay fila Soomaaliya isla markaasina laga dalbaday in jawaab dhameystiran loo helo weerarkii ka dhacay Hotel Villa Rose ee dhowr talaabo jira madaxtooyada dalka lagaga arrimiyo. baarlamaanka Soomaaliya ayaana la rumaysan yahay in uu yeeridooda Mahad Salaad ay kala yihiin qorshayaal badan waxaana maanta kulankii baarlamaanka ka cadaatay in aanay awood muuqato ku lahayn kooxda Damul Jadiid ee saaxiibada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Arrintan ayaa lagu fasiray in ay sabab u noqon karto in kooxda Damul Jadiid ee mooshinada maalmaha soo aadan imaanayo ay noqoto kuwo isdaba joog ah oo suuro gelin kara in qalqal la geliyo talada filla Soomaaliya. si kastaba ha noqotee xildhibaanadii ugu badnaa ee taageersan nabadii nolol ayaa maanta ka muuqday mikrofoonka iyaga oo dhulka ku jiiday xukuumadda ra'iisul wasaare Xamza soona bandhigay fashilka amni ee ka jira magaalada Muqdisho iyadoo indhaha ay ka daboosheen dagaalada lagu jira Al-Shabaab. waxa ay sheegeen in istiraatiijiyad dawladdu aysan lahayn iyadoo istiraatiijiyad la'aantaasna ay sabab ay kaga dhigeen fashilka weyn oo dawladdu wajahayso ee ku aadan amni darada. ana xildhibaanadan ay u sababeeyeen in madaxtooyada la weeraro in amnigoodu uu qalqal gelin karo. xildhibaan ayaa yiraahday gurigeyga hortiisa ayaa nin shabaab lagu qabtay. haddaba sidee ayuu ninka shabaab ku soo galay gurigeyga? waxa la doonayay in aniga la dilo iyo hadallo kale ayaa laga soo diiwaan geliyay kulankii baarlamaanka ee maanta qabsoomay. isku soo wada duub arrintan ayaa imaanayso iyadoo dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya dagaal xoogan uu ku dhaxmarayo gobolada Soomaaliya sidoo kalena shabaab weeraro qorsheysan ay ka geysanayaan gudaha magaalada Muqdisho. geesta kale tan daawadayaal haddii aanu fiirino dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa isaga baxay saldhiggii ugu weynaa oo ay ku lahaayeen gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya iyadoo la soo warinayo in ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ay gudaha u galeen degmada Aadayabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya. Al-Shabaab ayaa isaga baxay Aadayabaal oo ahayd saldhiggii ugu muhiimsanaa ee jiritaankooda gobolka Shabeellada Dhexe. wararka inaga soo gaaraya degmada Aadayabaalna waxay sheegayaan in kooxdu halkaasi ay isaga huleeshay saacado ka hor kadib culays dhinacyo kala duwan ah oo la saaray. ciidamada dawladda iyo kuwa maxbuusleyda ayaa kaabiga ku hayo inay gudaha u galaan degmada Aadayabaal kadib markii kooxda qawaariijta ah ee gudaha degmada ay ku aaseen miinooyin iyo waliba qaraxyo waaweyn oo la doonayo in lagu qarxiyo askarta ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ka hor intaanay soo gelin. sidoo kale diyaaradaha dagaalka Turkiga ayaa dul heebaabaya Aadayabaal waxaana taasi ay sababtay ama sabab ay ka dhigtay in ciidanka qalabka sida ay ku sii nagaadaan duleedka degmada Aadayabaal balse meelaha qaar ayay dhowr jiha ay ka galeen. Aadayabaal ayaa ka mid ah meelaha ay sida weyn uga xoogganayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab muddo 10 sano ee weedaratay. gudaana daawadayaal intaas ayaa ku soo meeriya barnaamijyada kala socotay warbaahinta Soomaaliyeed tan iyo kulantii dambe oo diirsan.